sheekh ibnu cuthaymiin raximah llahu tacaala qeybta labaad wuxuu ku tacliiqiyey hadal muhima oo fi lxaqiiqa aniga aada ii taabtay markaan akhriyey. wuxuu yihi sheekhu waan akhriyay hadalkiise wa hada calayhi akharu nnaas, in qofku asal ahaan cibaadadii iyo ku dhaqankii shareecada iyo raacitaankii sunnaha iyo inuu ku dadaalaya waa sida dadku ay u badan yihiin. tajidu fi lcibaadati mujtahidan xariisa, waxaad arkaysaa xaggii cibaadada isagoo dadaalaya, faralladii buu tukanaya, wuu soomayaa, sakadii buu bixinayaa, xajkii buu tegayaa, sunnayaashii buu ku dadaalaya, xaj sunna ah, cumro sunna ah, salaad sunna ah, soom sunna ah, dikri sunna ah, qiraa'atu qur'aan ayuu la imanaya. laakin fi lqadari tajiduhu daciifa, laakiin baabka qadarka markaad u timaado waxaad ogaanaysaa inuu yahay qof iimaanuhu bilqadar wa yaqiinuhu biqadaai illahi aad daciif u yahay, isticaanatuhu billahi qaliila, kaalmaysiga ilahi uu kaalmaysanayaa uu yar yahay. yactamidu calaa nafsi, markuu is yidhaha wax sameeya naftiisuu cuskanaya. bal qof waloo inaga midi habliye inamaba bal naftiisa dib ha ugu noqdo miisaanka ha saaro. markaad tukanayso hal tatadakar bilisticaanati billah watawakuli calayhi fi ficli salaa wa ikmaaliha. salaada samaynteeda iyo dhammaystirkeeda ilaahay inaad u kaalmaysato ma xusuusataa markaad salaada gelaysa faral iyo sunnaba. talabuka lilcilm, markaad cilmigan dalbayso ma quwatu xifdika iyo fahmika ayaad ictimaadaysaa, mise kula yowm kula sabaax kula leyla fi kuli dars tastaxdir alisticaanata billah watawakul cala allah. ilaahay subxana wa tacala inaad kaalmaysato oo ilaahay aad tala saarato qalbigaama kusoo xaadirisa. hal taxduru isticaanat llahi watawakulu calayhi fi qalbika cinda alwuduu, markaad weysaysanaysa ka waran. umuuruka dunyawiya ka waran, haddaad safrayso, haddaad guri dhisanayso, haddaad ganacsanayso, haddaad guursanayso, kayfa xuduuru altawakul cala allah walisticaanati billahi fi qalbik. nusuusta iyo adilada aynu akhriyayna tawakulka ka hadlaysa waxaad moodaa inay xayaatadeena nadari ku noqotay, aan tadbiiq lahayn iyo dhaqangelin. wacala allahi fatawakkaluu in kuntum muuminiin wacala allahi falyatawakal ilmu'minuun. adiladayna amraysa alisticaanata billah, ilaahay subxaana wa tacaala inaynu kaalmaysano. wuxuu uhi sheekhu yaquumu yatawadaw, wuu istaagaya, wuu weysaysanaya, walaa yashcur anahu mustaciinu billah, ma dareensana inuu weysada ilaahay u kaalmaysanayo. marka waxaa laga yaaba inuu weysadiiba iska daayo, siduu yihi fayusiibhum cinda alcamali min alcajzi walkasali maa yamnacu min alcamal. ama inuu weysaysto laakiin weysadiisi weyse dhammaystira inaanay noqon. ila weysada lafteedu waa cibaado, loo baahan yahay qalbiga in lasoo xaadiriyo, iyada lafteeda lagu khushuuco oo ilaahay lagu xusuusto subxaana wa tacaala. wa annahu in lam yucinhu allahu fainahu laa yastaiicu an yatawada, yacnaa ma dareemaya haddaanu weysadan ilaahay u sahli lahayn oon ugu kaalmayn lahayn inaanu weysaysteynba. kadalika fi salaati wa fi baqiyati alacmaal, waa tusaale un weysadu. fahada huwa aladii calayhi gaalib nnaas, kaas waa kaa dadku ay u badan yihiin. fayakunu haulaa anqasa minman qablah, qofka sharcigiina ku camal falaya, ilaahayna kaalmaysanaya subxaanahu wa tacaala oo tala saaranaya, aqdaarta ilaahay xanuujisaa maray ku dhacdana u sabraya, qofkaasay diintiisu dhammaystiran tahay. lianna aladiina qablahum yastaciinuuna billahi maca qiyaamihim bilcubuudiyati, laakina haulaai min alqismi athaani, kuwan qeybta labaada mujtahiduuna fi lcibaada, cibaadaday ku dadaalayaan, ilaa anahum daciifuuna fi altawakuli walisticaana, laakiin waxay ducafaa ku yihiin tala saaradka ilaahay subxaana wa tacaala iyo kaalmaysigiisa ayay ducafaa ku yihiin. aynu xaqiijino labada maqaamba iyo alabat alcilm, maqaam alcubuudiya walطaaca walistiqaama walxirs cala atacabud, iyo maqaam altawakul cala allah walsabri cala aqdaarihi almu'lima.
maqaamaadkaasoo dhan waxaad ka helaysaa iyagoo adilada qur'aan iyo sunne iyo aathaar iyo aqwaal culamaaba wata kitaabka madaarij saalikiin fi manaazil iyyaka nacbud wa iyyaka nastaciin libni alqayim raximah allahu tacaala